السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني والراديو هرقيسة عدك جمهورية الصوماليلان وردقدقة وادلا سعتان إن الدنيا دا وكسو بيري حنون ليراهدو كورونا فيروس والدنيا دي كغا قيلسيي غارهان China يوروب يا مريكان هذا بموادين هذا سوماليلاند درتهاي waxa la ogeysiinaya inaad u dhagtaagto dhageysato daawato cudurkan halista ah ee dilaaga ah wixii war ee dambe ku saabsanna dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام وحسبوي انت سوي نادي هذا يمكن اللي قبل انا اللي نوبش يقولي واحد اللي هو صوص ما حاو soo socdaaya bade uma keenada joogna maxay ku war kama hayno waa meesha inuu adibtis wala bismillah هلاو السلام عليكم سعادة الوزير آدم ما في عنتها دي waxaan u baahanahay arintii uu madaxweynuhu inoo xil saaray inuu ka wada hadallo arintii madaxweynuhu inoo xil saaray inuu ka wada hadallo marka waxaan u baahanahay inaad maxay ahaydeen xafiiskayga aynu isugu nimaadno miyad wasiirkii kale ismaqashay Cabdicaziis okay haddaba la hadalo isa soo raaco oo ii kaalaya aad baad u maadsantay wasiir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan doonaynaa inaan de go'aamadii aynu soo saarnay aynu ummadda u gudbino waayo ummaddeena xil baa inaga saaran xilka inaga saaranna wuxuu leeyahay ilaahay baa wax badbaadiyey inaynu u sheegno sida ugu munaasibsan ugu sahalsan ay uga badbaadi lahaayeen xanuunkan adduunyadii saameeyey cabsida geliyey sida degdega u fidaya haddaba muwaadin waxa dawladda xukuumadda Somaliland go'aan ku soo saartay maanta oo laga bilaabo bisha maanta ay taariikhdu tahay bishii 3/9/19 waxa lagu wargelinayaa muwaadiniinta Somaliland in ay fasax yihiin waa maanta marka laga bilaabo arrintuna waa arrin serious ah maaha wax sahlan in ay fasax yihiin jaamacaduhu dugsiyada hoose dhexe aweysyada meelaha la isugu yimaado aroosyada xafladaha gaarka ah meel wal oo lagaga badbaadin karo ummadda Somaliland xanuunkan coronavirus waxa lagu wargelinayaa in muwaadinku go'aanka la soo saaray ee ay xukuumadda Somaliland soo saartay inuu sideeda u qaato waxaana ka bilaabmaysaa maanta oo taariikhdu tahay 19 arrintaas oo ah mid lagu dardargelinayo walow aan Somaliland wax xanuuna lagu sheegin haddana wax waliba waxay ku fiican yihiin ka hortaga ay ku fiican yihiin maadaama uu madaxweynaha qaranka Somaliland noo xil saaray inaanu arrintan ka soo talino taladeedii waxay noqotay in awaamiirta iyo go'aamada sida ay u yihiin loo fuliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وافي عنا. سلام عليكم. حاور هيسان. خير يا بركة. خير يا بركة هيسان. أنا خير يا بركة ندين هيا لكن ما نتي رويتون هالكي سجون نمي. وحفل يا دواد مقلسين وركي إذا عاد ريدو هرجيسك بحي. واد مقلسين وحلو جهلي. واد أكتيل واد الله سعطان حنون كان عالم إمك فرا كلول كهيا. يا أدون كإمك كسوق الري. أين الهرول هانشرين. dhibaatadiisa iyo waxyeeladiisana waa ka warhaysaan
marka maxaa loogu talagalay inaynu inaguna difaac ka galno ama maxay hayday aynu inaguna maxay hayday kaga digtoonaano xanuunka السلام الله عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته في عمل هاديات عساك وروتا ولا بدلي والله ود السلاوي ها والله يرفع هاديات waryaare Haysa. masaasaba la isu salaamaya هات dee annagana weesadii mar walba rag weyna salaamaya naga edeejabaysay weesadaaba noo dhowrmaysaa soo maaha war runteeda weysadaaba u dhormayso marka waa in saas la war waxay maxaad la yaacdeen waryaareen salaamu calaykum horta عليكم السلام horta maalintii dhaweyto dee xandhufaa ku yar saxday hargabimuhay maxaad la yaacdeen soo qof cabal laga carabay xaaladdu sidii hore ma aho imika deel aad isku haleyn fara badan ma jirto waayi hadda waxaan ka gudbataa hay waxaan idhi waqti dee waxaan dawladdeenu amarray noo soo jeedisay in xanuunkan laga taxadiro qof walba waxa ku intii karaankiisa mugta caruurtiisa iyo ummadda iyo wax walba u badbaadiyo mugta taxadir sameeyo anigu waxaan siri alaabtii yarada lagu faaxalanayay mugta alcoholkii doono waxaan ku bishaariyay halkaasaan tagay baashi $2 la siinay ayaa $10 leeyay dawladdu sixirkii iyo maciishadii oo dhan baa wada kacday waxaan ku waxba erey xagan kama hadline maxaa talaa والله وارون تادا ku haysta Umar oo aniguna waxaan si ciyalka raashin yar u soo iibi raashinka mid walba wax ku kordhay $5 saru si kacaya marka waa in laga hadlo arrinkaas oo ande masaakiinta lagu kordhin oo looga faa'iideysan waan barab bulshada dhignaa adaaba ku haysta shamisay saaka markaa soo kacay baan farmasiyada soo maray waxaan soo iibso golofski yaraayo waxba soo iibso iyo dawooyin iyo wax noocaas golofski $3 kooga $10 dhiidhi baa leeyahay $1 buu baahan jiray marka ma baba $1 midda kale cabsaaq baa ku sii haystee anna aan mid idigu darsaday anigu waa tan xanuunkan imika jiro isku soo dhawaanay dabeedna waxaan sii bal hadda baalkii yaraa sanka lagu xilanay soo iibso meel horta meel buu ka waayay waa laga wada markii dabba la igu sheegay farmasiifo markii aan tagayna waxaaban xabad qura talay helo xabadiina waxa lagu leeyahay $40 bixi anna madax xanuun baaba igu dhacay waa $5 ahay ha salaamaad madax xanuun baaba igu dhacayo de markaan yaabay waxaan kaga maarmay bacdeeda ayar ayuu baan suluuday mar hadii neef ay wixii tahay ilaa xanuunka qof soconaya ma ahayn wani oo ka fiican baa taas ma garanaysa ilaa nima kaba nin lagu jiray ilaahay baa ogay waa bacaasa wada xidhan ka talo dawladdu maxay kaga tala gashay arrinka waan ka hadlaynaa waxa weeye war su'aalasan baad u hadashay horta waxa weeye waxaynu ka hadalnay oo kaliya cudurka sidii loo dabar jari lahaa ama looga hortagi lahaa laakiin sicir bararka iyo maxay ahaydeen suuqii sidii wax loogu iibsanayo qiimaha sii kordhaya idina hoos meeyay anigu saaka waxaan tagay bakhaar yar oo halkaas aan alaabta ka qaadan jiray qoladan elektrooniga iibsay dabeedna waxaan sii raashin yeeraa ciyalka guriga oo yaalay 20 niil qofna uu soo bixin bay sheekadu noqonaysaa talaagad yar oo carruurta hilibka ugu gurto ka soo qaado $110 iyo $120 baa la siin jiray $170 weliba markuu ila saayiray dhimaanu saaxiibnahay weyn 190 iga dhaqaaq way aakhirkii wuxuu yiri caabo weliba adiga waan ka xishoonaa 170 ku qaado marka waxa weeyaan horta sixir barna wuu soo kordhay suuqiina weydii ka arkaya wax walba samada isku talaaleen laakiin waxa loo baahay inaynu ka hadalno waan ka hadlaynaa shicibkiyo aynu u gudbino dawladda ha anu haddada iminkan soo joogsaday suuqan ka way ciyaalkan khudaar doon way waxaan ku yiri wax sida loo qaadayo ma jirto waan gartaa oo de maciishadii qaali bay noqotay qudaartii baa kacday marka miyiga ma isaga baxnaadeen xagan wala yaabayn wallahi aynu eega hadda bal eega waxa weeye dawladdeeni mar hadaanay ogeyn ay xaaladiina saa tahay dawladahan inagu xigay jaarkeena Itoobiya ka kowtahay Itoobiya ka kowtahay maciishadu waa halkeed waxa la yiraahdaa senti ku dartaan hadda waa dawladahan jaarkeena Itoobiya senti hadda dadka ku dartaan nin walbaaba جناح بعد الصاري ها وصل ولا قحري marka hadda inaga teeni maxaa talo qabsaday ma inaynu ka hadalno saan may saan Itoobiya tagmeeno saan dayartii wari xanuunkan looga faa'iideysan oo baa mushtarka walba waligood ba marka wax laakiyo wuxuu bay ka dalacaan waan dawladda la hadal inuu gaarsiinayno inaga shicibku hadalay taas loo baahan shicibkii baa soo jeedin sidaas ay isku salaaminada السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي وينجي أرين اسكو أوجين وادم أرينتينا سالة سعتان بدي ورر بدن بين سو جارية وارن ددوينه هنو حين عقدين دد ودقن نقول
fariintii aynu u dirnay ee ku saabsanayd caafimaadka coronavirus laakiin waxa soo baxday arrin kale inaan marka hore filaynba oo ah inaad saad u maqasheenba arrintaa waxaan malaynayaa inaad adiga laftigaagu igala hadashay marka waxaynu u baahannahay inaynu arrintaa go-aan ka gaadhno aynanu la hadallo wasiirkii ganacsiga marka isagaynu la hadlaynaa way u kala tagi mayno iminkaynu arrinkaa gabagabaynayno adaa nambarkiisa hayaaban u malaynayaa garaaca telefoonka ka garaaca هلو السلام عليكم سعادة الوزير. وعليكم السلام سعادة الوزير. aad baanu kuugu baahannahay maxay ahaydeen inaynu saragnaan u baahannahay xafiiskaygii aynu isugu nimaadno haddaanu joognaa waa arrin degdeg ee noo soo dhaqso hadduu soo baxaya inagama foga xafiiskiisa السلام عليكم. عليكم السلام. وري ورما. سعادة الوزير والفيعية بالورن. وخير بركة. يا سعادة الوزير وكان وزير كي أرمها بالشدة يالك أسوق هاي وضيع هاي. أيه. هذيك كانت ديوانا خلصوا هذا اللي. أيه. يوحك على ما هي وحي كانوا أولاً دولة وحبك خبطين. وصح. لكن مع شدي أي عرق سكوشر وحنون كي والله. يدور كبيسي. يدوني أن كان عشتي تذكرني كيف فايديستان. والله. مكاوي حفافين أنا وسير دايما شيء إن شاء الله. أيه. mudane wasiir waxa aynu u baahannahay maadaama aynu dadka wacyigelinay oo aynu ka wacyigelinay coronaviruska oo aynu soo jeedinay qodobo badan oo ay siday ahayd ay u qaateen waxaynu u baahannahay inaynu dadkii maxay ahaydeen aynu aan lagu tiigaalinay حقي معيشتي دن كلمة بين مركب وركها جنيس ما بين أنتو سنة دن كي كلا معيشتي وحلوات صدق شبار لو شبار نقدر يا وسير ربع هي سيدي وحلو قبل الله وسيو نكسن صدق هذا الشيء وسيو نكسن وأنا أعرف ماشي كل وحي أنك قبل كرنا إلهي نلوجي أنا وأنا كقبلنا وأنا ذكر رأسنا إمن كان أنك قادنو شركة ينا وكلا كعب ما هي لوك ربي حماية لوك ربي حماية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. markii aanu eegnay wacyiga uu dalka iyo duniduba ay ku sugan tahay asaynu soo jeedinay 19 bisha in wax meel wal oo ay bulshadu isugu imanayso la xidho dhibka ka jira adduunka gaar ahaan cudurkan coronaviruska inagu soo biiray waxaa duulay oo booday qiimihii muceeshada nooc walba ha ahaato ama raashin ha ahaato ama farmasi ha ahaato ama batrool ha ahaato wax wal oo muceeshada ay ku saabsan tahay haddaba xukuumadda Somaliland waxay soo jeedisay go'aanka ah in muwaadiniinta ganacsadaha ahi ay ku hayaan muceeshada halkii 19 bisha intii ku horeysay ay ku hayeen muwaadinka lagu arko inuu ka faa'iideysanayo cudurkan coronavirus masiibadan ilaahay dunida ku soo rogay ilaahay haynaga badbaadiyay waxa la leeshtiigsan doonaa tallaabo sharciga waafaqsan waxaanu ka codsanaynaa muwaadiniinta Somaliland ee aragta ama maqasha ama iyaguba ay ku dhacdo inay laamaha bilayska ee ugu dhow ka soo wargeliyaan ganacsadaha ku kaca inuu muwaadiniinta daciifka ah ee Somaliland ee danyarka ah ku tacadiyo oo isiraada kaga faa'iideysto chanska saxooye sacaadatu wasiir waan kugu raacsanahay anigu hadaan ahay wasiirkii amniga waxaan ku ballan qaadayaa in ay dadweynuhu iyo ganacsatada labadaba waan u shaqeynaa waa dadkeedii inaan haddana u sii kala shaqeyno sida ay u kala mudan yihiin
marka sida wasiirka arrimaha bulshada uu noo sheegay idinkana waxaan idiin sheegayaa hadba meesha amni kugu dhow soo sheeg haddii shilin lagu saaro annagana waxbaynu ku qabanaynaa oo waa ballan inaan idiin shaqayno idin hakran aad baa u mahadsantihiin wargelintaasi siday tahay ayaa loo qaadanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa laysa salaamaya